injineer ka socday wakaalada dabagalka iyo taakuleynta shirkadaha horumarinta dawladda ayaa soo kormeeray beerta shirkadda abuurka xulka beeraha ee deegaanka ee ku taalla tuulada Qabuuraley ee degmada Haroreys ee gobolka Faafan. kormeerkani oo ujeedadiisu tahay sidii loo ogaan lahaa shaqooyinka uu qabsoomay shirkadda abuurka xulka beeraha ee deegaanka ayay injineeradu ku eegayeen heerka uu marayo bixitaanka sirku si wixii caqabad ah ee jirta loo ogaado loona saxo. beertani oo ah 8 hektar oo la beeray 2 bilood ka hor qorshuhuna yahay in la gooyo 2 bilood kadib lagana goyn doono 150 kintaal oo qamadi ah ayaa sirka ka soo go'an lagu keedin doonaa bakhaarka shirkadda abuurka xulka beeraha ee deegaanka si markaasi loogu wareejiyo iskaashatooyinka ka faa'iideysta sirka ay soo saarto shirkaddu maadaama sanadkani roobka oo yaraaday awgeed ayna iskaashatooyinku helin sirka. Ilyas Maxamed oo ka mid ah howlwadeennada wakaalada dabagalka iyo taakuleynta shirkadaha horumarinta dawladda ayaa sheegay in dalagga ka soo go'a beerta wax weyn ka tari doonto xaaladii sir la'aaneed ee jirtay sanadkan. waxaan maanta kormeer ku nimid beerta badinta sirka ee Qabuuraley oo ka tirsan degmada Haroreys. laba ajende ayaan macnaha u nimid inaan wax ka soo ogaano soo kormeerno. ajendaha koowaad oo ah inaan ogaano xaaladda ay ku sugan tahay beerta Qabuuraley oo halkan ay tahay beerta badinta sirka. iyo ajendaha labaad oo ah inaan wax ka ogaano xaaladda iskaashatooyinka iyo shirkadda sirka xaaladda ay ku sugan yihiin. marka beerta Qabuuraley sir badintu waxa la beeray hadda ay maraysaa xaaladdeedu waa muddo 2 bilood ah waa 8 hektar. marka waxa la rajeynayaa inay ka soo baxdo cadadan 150 kintaal taasoo wax ka tari doonta xaaladda sir la'aanta ama sir yarida. sidoo kale marka la garab dhigo sanadkii hore waxaa jirtay in beerbadintu ay ahayd 2 site kan hadda aan joogno ee Qabuuraley iyo site-ka Gumburka oo isaguna 8 hektar ha laakiin maanta waxa kaliya la rajeynayaa inay soo go'do uun site-kan hadda aan joogno ee ah Qabuuraley 8 hektar. sidoo kale markaan la tashanay wareysanay aan qiimeynay xaaladda ay ku sugan yihiin iskaashatooyinkii ay taakuleynta siin jirtay shirkadda sirku kal hore waxa taakuleyn la siiyay iskaashata beeraleyda sirkii waa lagu taageeray. dhanka kale Umar Axmed oo ka socda shirkadda abuurka xulka beeraha ee deegaanka ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. marxaladda ay maraysaa kulli waad u jeedaan waxaana ka beeran meesha oo beertan soo buuqanay ku beeran qabadin weeyaan qabadinkaasoo la beeray 2 bilood ka hor marxaladdan stage-kana maraya oo flowering stage-ka hadda ku dhow taasoo ka rajeynayno haddii insha Allah Ilaahay roobka uu keeno in muxuu ahaa output far badan nooga soo go'i doono bulshada iyo xafiiska labadaba wax u tara. saadaradeed xafiiska dabagalku ujeedadooda ama hadafkoodu wuxuu ahaa inay soo ogaadaan bal wakaaladu waxa ay qabatay. marka sida idinka muuqato beertu aad bay u fiican tahay waa waqti aad u fiican bay ku jirtaa waxaan rajeynaynaa insha Allah expectation output-ka aan isleenahay uu ka soo bixi meesha ilaa 150 kintaal inay gaadho. kadib intaas markay soo go'do xafiiskana way anfacaysaa wixii xafiiska dheera iskaashatooyinka in lagu wareejiyo laga yaabo hadhow mustaqbalka loo siiyo maadaama ay shortage of seed uu sanadkan jiray oo aan la helin seedkii iskaashatooyinka faraha badnaaba ayna seed helin oo xafiisku siin jiray. waxaan rajeynaynaa inuu iyaga gashi u noqon doono insha Allah oo sanadka dambe lagu wareejin doono.